ma jirto wax ka qurux badan inaad dhoola caddayso adigoo qalbiga ka oynaya. dareen waxaa ugu xun qof aad si waali u jeceshahay oo kun jeer ku niyad jabiya. murug kugu daba dheeraatay qof aad weyday dartiisa, micnaheedu qofkaas dhab buu ka ahaa jaceylkiisa. hala yaaban qof si dhaqsi ah isku beddelay, laga yaabo inay matalaadii ka dhammaatay. ha u samaynin wax walba qofkii aan awoodin inuu kuu sameeyo waxa uu awoodo. qofkii aan marnaba hadalkaaga ku caajisin, si walbuu ahaado ogow waa qof si waali ah kuu jecel. afka lagama sheegto adigoon jaceyl arag. ha ku waayin naftaada isku dayga ilaalinta qof kale oo aysan macno ugu fadhin waayistaada. inaad jaceylka qalbigaada ku haysato baa wuxuu dhaamaa inaad siiso qof aan mudnayn. qofna dareenkiisa ha ku ciyaarin haddii aadan awoodin inaad farxad siiso. ha dhaawicin qalbi ku siiyey dareen dhaba, waayo ma ogaan kartid culayska soo gaaraya. marnaba ha ka shalaynin aamusnaantaada badan, sababtoo ah dadka waxaan ku weynaa hadalkeena badan. si aad u guulaysato waa in rabitaanka aad rabto guusha inuu ka xoog weynaadaa baqidda aad ka baqayso guuldarada. qofkii ku garab joogay waqtiyadii murugada, qofkaasaa mudan inaad la joogto waqtiyada farxadda. qosol mar walba oo aad awooddo, waayo waa daawo raqiisa. nolosha waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inaad joojisid dhihista waxaan rajaynaa, ku beddel waan samaynaa insha allah.